ninkan u jeedin camoolo ahay ugu dambeyn indhaha waa loo daawiyay xaaskiisuna waxay ku faraxsantahay inuu hadda kadib wax arkaayo waxay rabtay inuu wajigeeda noqdo waxa ugu horeeya oo arko laakiin isagu wuxuu bilaabay inuu xaaskiisa raadiyo waxay ku dhehaysaa aniga waa xaaskaaga wasfican miigu jeedid miya laakiin isagu wuxuu taagan yahay sanadahan oo dhan waxa qabay ma waxay ahayd naagta foolxumada badan intaasna waxa uu raacinaa boqolkiiba boqol waxaan hubaa in xaaladda aan ku jira aad iiga faa'iideysatay laakiin iyadu waxay tusaysaa faraantiga ay isku galiyeen 3 sano ka hor markay isguursanayeen isla markaasna qolkay ku jireen waxa soo galay midoo kalkaalisa isaguna wuxuu taagay muujidida waxana qurux laga dhahaa iyaduna maadaama arintaas ka niyajabta banaanka u baxda laakiin gaariya dardari rabay oo midkaan waday markuu weydiiyay waxay ka walwalsantahay waxay u sheegaysaa inuu ninkeedu ka tagay arintaasna aysan macquul ahayn inaysan aamini karin maadaama ay midaan walwalsaneedna wuxuu go'aansaday inuu u soo wado meel beer ah oo isagu markii uu walwalo oo yimaado wuxuu ku dhahaa adiga hal qof oo kaliya maxaa isugu xiraysaa waxaad heli kartaa qof wanaagsan oo dareemayo dadnimadaada laakiin iyadu hadalkiisa ma dhageysanaysa waxay taagantahay waa isqurxina dhar fiican waa gashanaa si uu ninkeygu mar kale ii jeclaado intay soo baxday meel saaluun ay maatay gabadhii joogto waxay u sheegaysaa in gabadhan sawirka ku jirto kale ay ka dhigto midkaan ilaa markii uu soo daba socday maaqa wuxuu u daba socday iyadiina waatanahay shaqada markii loo dhameeyay way soo baxday iyadoo dhar fiican soo gashatay waxay soo aaday gurigeedii xogaa ay banaanka taagneed oo ka fikiraysay waxay ninkeeda ku dhihi lahayd guriga gudaha way u soo gashay nasiib darro meeshii hadal wanaagsan ka sugaysa midkaan intuu ku qoslo wuxuu ku dhahaa maxaa kugu dhacay adiga yaa ku soo rifrifay waxay u sheegtay inuu qarash badan ay soo gelisay si ay ugu qurxoonaato isaga wuxuu taagan qurux mi ay dhahday haddii daanyar la soo qabto oo dhar fiican loo geliyo wax ma isbedelayaan daanyarli ahaane waxay bilaabaysaa inay soo xasuusiso inay sanado badan u shaqaynaysaa lacag si ay isaga caafimaadkiisa ugu taxadirto hadalkeeda intuu ku caajiso wuxuu u sheegaa inay guriga isaga baxdo oo rabo inuu xaaskiisa si fiican ula sheekaysto intaas kadib intay soo baxday waxay imaatay meeshii beerta ahayd oo midkii hore u baray isaguna wuu jooga qofka ka soo welwelsiya u maleynaa isagana xogaa ay wada sheekaysanayeen kadib waxay ku dhehaysaa qaladka gala wuxuu ahay inaa isqurxiyo ana isaga aan dib ugu laabto iyaga oo sheekaysanaya hal mar waxaan aragnaa inuu waqtigu gudbay arrintaasna ay 6 bilood ka soo wareegatay iyaguna maadaama ay saaxiibo noqdeen wuxuuda saaxiibtinimo way soo dhaaftay ilaa ay isku guursadeen meeshii ay isku barteen dhinaca kale waxaan aragnaa kalkaalisadu inay ninkeeda indhaha ka fiirfiirinayso waxay ku dhehaysaa xaaladaadu way sii xumaanaysaa haddii aad sidaan ku jirtidna wax ma sii arki doontid sidii hore ku noqonay macnaha waxa uu sheegaa inuusan arrintaas dhicin uuna isagu fiicnaa doono intaas kadibna iyadu ku taxadiri doonto laakiin nasiib xumadiisa midaan intay ku qosashay waxay ku dhehaysaa hayo qoslin aniga arrintaas ma samayn kariye anigu nin camoolo noqon rabo ma la joogi rabe ee nin wanaagsana raadsana isaguna hal mar wuxuu iska soo jaraa qeylada wadid maxaa waaye inaan lacag ku siiyaa diyaar u ahay laakiin iyadu waxay ku dhehaysaa sidee ii siinaysaa lacag weliba anigu mushaarkaaga ka badan yahay intaasna waxay u raacinay naagtaadii hore oo foolxumada badneed raadso inay ku sugaysaa laga yaabaa weyna isaga tegi intuu soo baxo dhakhtarkii dib ugu soo laabtay dhakhtarkuna waxa weydiinaa ookiyaaliya aan gasho ku dhahay ma gashatay laakiin hal mar xitaa midka 6 bilood ookiyaalo muusan gashan dhakhtarkuna wuxuu ku dhahay xaaladaada wax ma laga qaban karo markaan bis waaye intaas kadib dhakhtarka wuxuu ka codsanaa inuu u waco xaaskiisii hore nambarkeeda xogaa kadibna iyadu way timaaday weliba iyadoo wadato waraaqadihii furniinka oo midkaan saxiixiisa kaliya ka dhiman yahay waxay u sheegaysaa inuu waraaqadahan saxiixo ayna yihiin waraaqadihii furniinka weyna isaga tegi ugu dambeynna waa kanaya isagoo ku qaylinayo mar kale jaanis isi muuqaalkuna intaasoo ku ekaayee leegnosa ninkana u jeedin wuxuu telefoon kula hadlayay lacagta uu gacanta ku hayo ninkii iska lahaay laakiin hal mar lacagtii intay ka dhacday waxay u koraysaa gaari baaskiil ay wadatay naag duq ah duqdu markay aragtay lacagtan ku soo dhacday go'aan ay hore ka qaadatay waxay wacday kalkaaliso u heeday gabadheeda waxay ku dhehaysaa gabadheeda dhakhtarka dib waa ugu celi kartaa si qaliinka loogu sameeyo hadda aniga lacagtii waa hele kadib kalkaalisadu si farxad ay ku jirtay gabadha waxay ugu sheegaysaa inay hooyadeed heshay lacagtii qaliinka lagula sameyn lahaay ugu dambeyn hooyadu waatana iyadoo gabadheeda lacagtii tusinaysa waxayna dib loogu celiyay isbitaalkii mar hore lacag la'aanta looga soo saaray midkaana wax badan wuu soo orday laakiin maadaama baaskiil wadatay way ka soo dheereysay maalintii oo dhan maadaama magaalada dhan baaritaan ku soo sameeyay ugu dambeyn wuxuu soo helay adreeskeeda isla maalintaasna muusan aadin isbuuc dib u dhigtay markuu guriga yimaadana duqda gabadheeda waxay weydiinaysaa wax uu rabo way soo dhaweynaysaa kadib markii uu u sheegay inuu hooyadeed rabo iyaduna waatanahay waxay go'aansatay inay su'aalo weydiiso intay hooyadeed ka imaanayso xogaa ay wada sheekaysanayeen kadib wuxuu ku dhahaa adiga maxaa kugu dhacay dhibaatadan kursi kula fadhiisay kuu soo gaartay waxay u sheegaysaa in asbuuc ka hor qaliin iyadoo lagu sameeyay ayna fiicnaa doonto intaasna waxay u raacinayaan annaka maana haysan lacagta qaliinka laakiin hooyada iyadoo maalin wadada maraysay lacagta kor uga soo dhacday isaguna intuu naxo waxa weydiinaa oo hadda lacagtaas miyay qaliinka u isticmaasheen haa markii ay ku dhahdana waa kanaya hadeertaanoo si fiican u naxay waxay weydiisay waxa ku dhacay markay aragtay wejigiisu inuu isbedelo laakiin isaga wuxuu taagan yahay wax miigu dhicin laakiin waxaa la yaabanaa lacagta cirka ka soo dhacday intaas kadib hooyadu banaanka ku maqneeda guriga dib ugu soo laabatay waxayna u sheegay inuu wiilkan iyada sugaayo markii ay weydiisay waxuu ka rabana beero u sheegay isagoo ku dhahayo dhakhtarka ay soo diray waxaan ahay kalkaaliye macnaha si ay gabadhaada ugu taxadiro kadib waa kanahay maadaama been sheegay shaqo caadi ah u soo baxday duqduna waxay ku faraxsan tahay maadaama ayanta nasiibkeeda uu fiican yahay isla maalintaasna waxaan aragnaa midkan inuu shaqooyin badan oo hooyadeed u qaban jirtay oo isagu hadda u qabanayo isla maalintii labaadba taleefankiisa waxaa soo wacaya ninkii oo maalin hore la hadlayo oo lacagta u waday markii uu weydiinay sababta uu lacagtiisa ula maqan yahay taleefanka intuu ku jiro wuxuu bilaabaa inuu guriga alaab
qaaliya ka dhex raadiyo si uu u xado uuna dib ugu iibiyo. Qulubta u dagaysa kadib markii uu arko faraanti qaaliya oo meesha yaalo laakiin nasiib xumadiisa duqdiya aragtay. Maadaama uu dhinaca hadalka ku wanaagsanayna wuxuu ku qancinayaa inuu alaabta daadaawanayo isku mashquulinayo macnaha. Intaas kadibna waxaan aragnaa inuu midii dalxiis banaanka ugu soo waday. Isagoo midaan u baxsiinayo waxa ka qasay midkii lacagta ku lahay wuxuuna u sheegay 2 maalin haddii uu lacagta ugu keeni waayo inuu dacweyd doono. midaana waxay taagan tahay aniga meesha ama ka tagay ilaa ay sheegto dhibaatada ku haysato wax ay tahay. Markii ay ku adkaysatana ugu dambeyn waxa ku dhahay lacagta adeeda hooyaday cirka uga soo dhacday waxa iska lahay aniga booskeyga. Sheekadii oo dhan marka uga sheekeeyana waxay ku dhahaysaa caadi way dhibaatadaas aniga hooyaday waxa xalli karnaa. Intay soo baxeen guriga dib ugu soo laabteen si ay hooyada wax ugu sheegaan. Kadib iyadu waxay bilaabaysaa inay hooyada u wacdo ayna sheekadii uga soo bilaawdo una dhameyso. Waxayna ku dhahaysaa ma jirto lacag si iskeeda cirka uga soo dhacayso. Intaasna waxay u raacinaysaa isaga markii aan u sheegay lacagta in qaliinkeyga lagu sameeyay. Go'aankiisa ah inuu lacagtana weydiisto dib uga laabto isagoo kalkaaliye iska dhigay. Marka maadaama wanaag noo sameeyay markiisa waa inaan wanaag u sameeyna aan ka bixinaa lacagta loo haysto. isla markaas hooyadu intay baxday xoogaa kadib soo laabanaysaa iyadoo wada faraantigii qaaliga ahay iyo waraaqadaha gurigooda. Markay weydiisay inay lacagtu ku filantaan wuxuu ku dhahaa si adag u shaqeynaa si aan gurigeena dib ugu soo celiyo. Gabadhaada inaan guursadana waa u soo laaban doonaa maadaama aan jeclaaday waa haddii ay iga aqbasho. Isagoo ka tagayana muuqaalku dhamaaday hadda halkaas soo gaartay like noo saar.